kulan lagaga hadlayay arrimaha qaxoontiga Soomaalida iyo dhibaatooyinka haysta oo ay ka soo qayb galeen madaxda ugu sareysa hay'adaha UNHCR, NRC iyo qaybo kamid ah bulshada Soomaaliyeed ee ku nool wadanka Uganda ayaa lagu qabtay xafiiska jaaliyadda Soomaalida ee magaalada Kampala. Kulankan ayaa ugu horeyn waxay madaxdu cabashooyin iyo warbixino ku saabsan arrimaha qaxoontiga Soomaalida ka dhageysteen madaxda jaaliyadda oo ugu horeeyo gudoomiyaha jaaliyadda Mudane Sayid Axmed iyo qaar kamid ah bulshadii Soomaaliyeed ee ka soo qayb gashay kulanka. ugu dambeyntii waxaa halkaasi ka hadlay madaxda ka kala socotay hay'adaha UNHCR, NRC waxayna sheegeen inay wax ka qabanayaan dhibaatooyinka haysta Soomaalida ku nool wadanka Uganda hadday tahay inay helaan adeegyo caafimaad oo bilaash ah, waxbarasho iyo gargaar bini'aadantinimo oo kale. Waxaa xusud mudan in arrinta la wada sugaya furitaanka OBM-ka laga wada hadlay balse aanu kulanka ka soo qayb galin xubintii ka socotay OBM-ka. hase ahaatee madaxa ugu sarreeya hay'adda UNHCR ayaa sheegay in sida ugu dhaqsiyaha badan looga hawlgeli doono arrintaas wiiga soo socdana loo furi doono, tahayna mas'uuliyadooda ilaalinta badqabka dadka qaxoontiga oo ay kow ka tahay helitaanka sharci cadeynaya inaad qaxoonti tahay. Xaaji Axmed, xafiiska warbaahinta jaaliyadda Soomaaliyeed ee wadanka Uganda.